السلام عليكم ورحمة الله. صار كيسان بجيكada ayaa ku jira cunta ayaa dabkii saaran marka waxaa rabo inta dabkii saarantaa cuntada inaan video yar nila wadaago. Videogan wuxuu ku saabsan yahay maxaa la dhahaa qof client-iga kamid ah dadka macalinka kamid ah ayaa wuxuu sameeyay arrin la yaab leh, arrin zaid iga farxisay aan isdhehaynin qofkaas uu sameyn karayaa. waan tusin doonaa qoraalkiina dhex maray waa kan. So numberkii waxaa ka tiray private qofka oo inaa xishmaysaa hadaladeedina waa kuwan. marka aniga aad ayay ugu farxay aadna waxaa ku leeyahay hawshaada wad ha joojinin. dhex maray qofkaas duu is yaqaano hawl wanaagsan ayaa qabatay hawshaada meesha kasii wad. horta qofkaas daan sheego waxaa waaye gabar joogta Kenya Nairobi. maasha Allah waxaa bilawnay programkan diet-ka waxaa filayaa haddaa si fiican u xasuusto ramadaanka dhamaadkiisii ramadaanka 5 maalin meelahaas dhiman tahay ayaa bilawnay. So markii week 2 week waday 3 week filayaa waxaa ka dhacday 9 ilaa 10 kilo. waa gabar caruur haysata gabar cunug haysata guri joogta hawl qabad. markaas qoraalkii markay isoo dirtay kooda horta waxaa filayay 3 week ilaa qof cusub ilaa 5 ilaa 6 week ka dhacayso. midda kalena training dhan may sameynayeen gym ay aadeen. training ugu badan ay sameynayso wuxuu ahaa midka guriga video au sameeyay oo guriga loogu talagalay lagu sameeyo sida ii sheegtayna kuwa zaid uma sameynayeen laakiin waxay hubisay diet plan-ka oo qoray hal maalin ma qayaanin wixii dhan way ii sheegtay hal maalin cheat meal ma sameynay ugu tiri. So markaa maqla sheekada aad ayay ii dhiirigelisay anigoo xataa macnaheey plan-ka wax walba qoray ayay arrinta zaid ii dhiirigelisay sababtoo ah dad badan diet-kan isla bilaawna iskula jirnay. dadka badankiisa horta way ka dhaceen way iska daayeen qaarna meeshay rabay maysan gaarin qaarna hadda wadnaa maasha Allah gooshooda ku socda sida gabartaas oo kale. qof kale saaki la soo xiriiray wuxuu igu dhahay 8 kilo ayaga dhacday 3 week gudahood ayadana. dumarku waxaa waaye maasha Allah markii program dadka ugu jira marka badankii la eego wax guusha gaaray waxa u badan walaalaha dumarka. sababtana waxaa tahay filayaa macnaheey inay dumarka xiisa zaid u ku hayo training-ka sababtoo ah ragga mar badan ay training garan jireen kubadda ay dheer jireen wax badan ay sameyn jireen laakiin dumarka guusha ay gaarayaan markii ragga loo fiiriyo zaid ay u badan tahay. hawsha haysaan meesha ka wada waxaa tihiin dad zaid wanaagsan hawl qaalina waa haysaan. guriga idinkoo ka shaqeynayo dumar raggii suuq ku maqnaa idinkoo wax u diyaarinaya caruurta idinkoo qoodinaya ayaa haddana waxaa sameynaysaan hawl extra inaad training sameysaan. qaarkiin gym aadayaan qaarkiin guriga ku traineynayaan excuse oo iska dhaafteen aadna ayaa ugu faraxsanahay. qoraaladaas oo kalena markay soo gaaraan aniga zaid ii dhiirigeliyaan sababtoo ah maalin walba waxaa soo gaara qoraal video zaid ayuu ii saacideeyay kiilooyina iska riday video zaid ayuu ii saacideeyay waxaa sameeyay maxaa la dhahaa transformation kiilooyina iska riday kiilooyina isku kordhiyay. So markaa maqlo videodaas oo kale ama qoraaladaas oo kale aad ay ii farxiyaan sababtoo aan markaa YouTube bilaaway waxa bilaaway inaad qof dadka saacideeyo. goolkaygan wuxuu ahaa in dad saacideeyo marka waxaa filayaa goolka half inay noo maraysaa cuntadana iyo guwan video yar aan ila wadaagi rabay. dumarka hawsha haya meeshiina ka wada ragga hawsha haya meeshiina ka wada way caawinaada coaching online coaching qofku u baahan waxaas oo idil waa shaqadeeda. channel-ka ku cusub tahay subscribe like asxaabta la wadaag. Peace.